marka hore waxaan halka ka salaamayaa baxda aan nahay bahwadaagta dhinaca waxbarashada marti sharafta lagu casuumay xafladan quruxda badan bahda saxaafadda fanaaniinta maamulka jaamacadda Jigjiga maamulka jaamacadda Green Hope ardada isugu jirta master degree iyo bachelorka madaxda maamul goboleedyada xildhibaanada golaha shacabka ee xafladan ka soo qayb galay gudoomiyaasha maxkamadda gobolka Banaadir iyo Jarracfaankaba gudoomiyaha guddiga qaranka shaqaalaha rayidka ciidanka qalabka sida wasaaradda waxbarashada oo nagala joogo agaasimo Ismaaciil iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo aan ka mid nahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee dowladda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan aan ka soo qayb galo xafladan anoo ka mid ah ardayda ka qalin jabinaysa master degree-ga jaamacadda Green Hope waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawadu tahay wasaaraddii ugu horeysay oo partner la noqota jaamacadda Green Hope arday badan oo wasaaradda ka tirsan ay ka qalin jabiyeen degree-ga maanta oo aan halkan taaganahayna waxaan ahay arday ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Green Hope master degree intii badneyd waa la yiri muhiimaddu aan halkan u soo istaagay waxa weeye waxbarashadu ma dhamaato aniga markii aan degree-ga qaadanayay nasiib uma yeelan in xafladii ardadii ila qalin jabinaysay inaan la qayb qaato laakiin maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bishii June waxaa farxad ii ah inaan ardaydii aan wax soo wada baranay inaan la qaadanayo farxadda qalin jabinta master degree-ga hadal badan ma oranayo waxaan kale oo maaragtay halkan rabaa inaan ardayda ku dhiiriyo inaysan waxbarashadu dhammaanin ka isdhahdana waxbarashadu wuu ka gaabinayaa aynu garab istaagno dhinac kastaba marka waa maasantihiin dhageysigiina waxaan ugu faraxsanaa tiyaatarkan haddaan sawiro aanay tuso tiyaatarkan maalintii ugu horreysay oo la dayactirayay waxaan ka mid ahaa dadkii isxilqaan ku dhisay laakiinse ka mid ma ahayn berigii hore dadkii gacantooda ku dumiyey tiyaatarkan aad u jeedaan shaqaalaha dowladda aad bay isugu xilqaameen inay dhisaan iyagoo garab ka helaya madaxda dowladda maantana waxa aan u jeedaa inuu tiyaatarkani uu yahay tiyaatarka keliya ama meesha keliya ee xafladaha waaweyn lagu dhigto waana ilaahay mahadis oo ummadda ka dhexeeya cid gaara ma leh waxaa inoo maamusha oo inoo ilaalisa maamulka warfaafinta dowladda Soomaaliya waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.